السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وهذا آدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وسبتي وان سجالك بيش السديدات سنتك لبضة كون إيو شنية لباتنك مقال كان ما أنت وحن ربعنا ندي كل وذاقه وحن أجين معمول كترام مركي وحلك لوريجي بيشي جانوري إن وبالله مسافرين تدك ودن كشرع الدرادة كوسو قلي saddexdii bilood ilaa ay labadii bilood ee ugu dambeysana dadka Soomaalida ah ayaa si aad ah loo qaadayay oo dalkii Soomaaliya la geynayay hadaba waxa qadka ku jira Ciise Aadan Sharaawe oo kamid ah dhalinyaradii wadanka soo gashay isla markaana aan loo ogolaanin oo loo soo fasaxin wadanka Mareykanka gudihiisa oo ku dhawaad muddo sanad ah markii uu xabsiga ku jiray bishii hore la masaafuriyay magaalada Muqdisho laga dajiyay hadaba waxaan rabaa marka tallaabooyinkii kala duwanaa ee la marsiiyay markii la masaafurinayay Ciise bal inuu warbixin naga siiyo dhibaatooyin uu la kulmay safaaradda Soomaaliya iyo sida dadka Soomaalida ah ay waraaqaha go home-ka ay ugu soo jarto diyaaradda Turkish Airlines oo iyadu diiday dadka Soomaalida inay qaado maxay tahay sababta arrimahaas oo idil ayaan wax ka weydiinaya umrada sanadkan Salaama Group waxay idin haysaa waa maasan tahay walaal waxaan soo galay Mareykanka bishii toddobaad 26 sanadkii 2024 macna 2024 xadudkan ka soo galay California San Diego meel yara ka soo galay marka xabsiga markaan ka soo galayna waxaan la gudbiyay qolo yar oo xabsi oo ayana security oo ICE la gudbiyay meeshaas waqti badan ku qaatay laakiin markii xabsigaas oo California la geeyay waxaan ku xirnay California 8 bari hadana tarasadaasi maray oo wadanka gobolka la soo leeyahay Arizona ayaan la bari ku xirnay kabacdi waxa la geeyay Louisiana waatay Louisiana marka waxaad ii sheegtay waqtigaada inta ugu badan inaad ku qaadatay waxaan ognahay Louisiana meelaha ugu badan ee dadka lagu xiray ku jirta wax imisa xabsiya ku taala tiri Louisiana oo dadka lagu xiro walaal Louisiana waxa ku taalo 12 xabsi waa gartay adigu mid kamid ah ayaad ku xirneen marka ku dhawaad muddo 10 bilood ah waxaan saddex xabsiya oo Louisiana ku taala soo maray oo sida Louisiana ku taalo midna waxa la yiraahdaa Jackson Parish midna waxa la yiraahdaa Wing Correction mid kalena waxa la yiraahdaa Jana waa tahay marka xabsigaasi in muddo ayaad ku jirtay sheekada waxaan ka bilaabeynaa marka waxaa jirtay in maalin la idin yimid oo aad u maleynayseen in xabsi kale la idin bedelayo laakiin si toos ah airportka la idin geeyay bal sheekadaasi aniga iyo dadka daawanaya mana dhageysanaya bal warbixin naga sii sidee maalintaasi goorma ah taariikhdu waqtiga ahayd xilligaas walaal wixii ahayd bishii shanaad maalintii bishii shanaad shanteedii ahayd walaal waxa jiray oo sidaas la socotaan baa waxa waaye safaaradaha horta way bilaabeen waraaqaha tarxiilka bilaabeen laakiin anaga safarkayna maana la ogeysiinin oo sababtoo ah dadka kale sida wadamada kale ka yimid waa soo wacaa qofku waxa la waraaq tarxiila tahay safaaradda soo wacday safaarad qofku bilaadle gurigii lagu tarxiila maswa joogaysa qofkaas joogis kale qofkii jooga uu jooga qofkii baxaana uu aqbala marka waxa leedahay safaaradda Soomaaliya anaga si toos ah lama soo xiriirin oo nama weydiinin inaan doonayno inaan wadankeena ku laabano iyo in kale in anaga la soo wacay iska dhaafay xataa safaaradda waa wacnay si aan ugu hortagno waraaqaha ee safaaradda daabacayaan safaaradda oo telefoonada way iga qaweysay idna la macaamishi waa weyni markii dambana anaga qasaba waraaqeen waa loo keenay iyo qasaba loo keenay waana ka ciidantaa waa tahay markii xabsiga la idin ka saaray oo airportka la idin geeyay maxaa dhacay sidaas ku ogaateen in la doonayo in la idin tarxiilo walaal ma loo sheegin bani markaan nima sirdoon waay qaab sirdoon amal dadku qaadaan qodadka waxay malayaan dadka qaar daacadska ah waanan garanin diyaaro meel ay marayaan marka qorsho waxay ayagu ismaalaan dadka in transfer wax la yiraahdo gobolada kale la geeyo oo diyaarada la saarayo marka ma kala garanayso qofka tikitka hadii laga qariyo diyaarada dil uu saaro hal mar ay kacdo waxay ka soo degaysaa Turkiga marka anaga walaal waa weydiinay oo kuwa shaqada ku isla weydiinay xagga soconaan dharay wuxuu dhahay waxa uu socotiin Atlanta Georgia to Turkey to Nairobi adiga harina diyaarada saarina bareefo
laakiin arrintaasi ma waxa la idin sheegaya markii airportka la idin geeyay mase intii aad xabsiga ku jirteen marka airportka la geeyay oo diyaarada la koray oo aniga bas aan dhimanahay bas loo sheegay waa gartay laakiin waxaad ii sheegtay horta ka hor intii ay arrintaasi dhicin inay idin weydiiyeen luqadda ingiliishka ma fahmaysaan aad tiraadeen maya markaasi kadibna aad aragteen iyagoo ka wada hadlayo oo dhahaya war adigu meeqa wadana dad geys waxyaabahaas aad maqashay iyagoo ka wada hadlayo ha walaal markii xabsiga la keenay anoo gacmaha ku xirxiran katiinada naga fureen waxay dhaheen walaal Soomaali ma tiin ha okay luqadda ma garanaysa ingiriiska maya ingiriiska ma garanaysa maadaama hadday ingiriiska waa garanaysaa su'aalo badan ay ku jawaabayaan marka aad waa dhibsanaysaa qofku oo dhibsana xabsi markii yimaado xogaa yar waa dhibsanaysaa su'aalaha badan laakiin ingiliishkan wax waad ka fahmaysaan oo eber ma aadan ahayn ingiriis waa fahmaynaha xogaa wax macquul waa ka fahmayno waxaan ma fahmayno kabacdi waxay dhaheen ayaga meel fadhiisteen anagana meel fadhiisana biyo la siiyeen waxay dhaheen iyo jooga caadi waaye marka sheekay galeen waxay dhaheen ayaga dhaxdooda waxay dhaheen wadamada Afrikaanka waa dheeriyeen iyo wadamada Afrikaana u badan tagtay marka Senegal iyo Congo iyo Ghana iyo Kenya iyo Ethiopia Soomaali badan tarxiilnay lagu dheen ay macnaha iska wareysanayeen safarada waa dheer tahay marka anaga marka aan arintaas aan maqalnay kabacdi waxaan gashay xabsi macnaha in anaga Afrika u socon marka diyaaradii markii la yeeriyay oo dadku u dambeeyay anaga weydiin maxaa walaal xagee u soconaa uu noo sheegay wuxuu dhahay Soomaaliya waxa u socotiin Atlanta Georgia kabacdi Turkey to Kenya to Soomaaliya anaga waa diiday maxaa dhahay anaga meel u soconaa ku dhahay sababtoo ah anaga wax lama ogeysiinin safaaradda Soomaaliya lama soo hadin anaga dad maxaa dhahay oo sakiina Mareykan dib maan ka gelin Mareykan hadda xuduudka lagu qabtay waa soo dhiibnay sharciga wuxuu qabaana anaga macnaha in anaga wuxuu qabaa sharciga qofka Soomaaliga ah in aan la tarxiilin ba sharcigu meesha ku yaal dhigaya waa gar oo wadamada aan la tarxiilin waxa kamid ah Soomaaliya iyo wadamada yar sida maaragtay Soomaaliya Eritrea lama tarxiilo ayada iyo Afghanistan iyo Sudan iyo ay sheegtay inay ku jiraan waa wadamadaas marka dad qaar waa la fasaxay oo Eritrea ka fasaxay laakiin Afghanistan waa tarxiila Soomaaliya waa tarxiilay laakiin Eritrea bas waa la fasaxay ayagana waa tahay marka waxa waa isbaarada سفارة إريتريا وادي معنا قبل إريتريا نلتقي واقرت مركا دياردي أذين كلي كدي ما عندك كلا وين راعين وادي دين ما حد عي مركا كدي مركا والله إني وانا جوجيان قلت بين قشرين وانا جوجيان داوع أبويا سنتي لفتح داوعي بدنا يسوق يا كل السعودية مركا هذيك مركز يا كل السعودية هذيك هل ويلو صومالي إلى السعودية waa gartay marka waxaad ii sheegtay sidoo kale jirdil kale in la idinku sameeyay marka laga reebo in meel galaada gadaale inta la idin geeyay katiinad la idinku xiray in bac madaxa la idin galiyay oo la idin yiri ma baxaysaan oo la idin cadaadiyay ha walaal way jirtaa qorshaha qofkii bixidiido madaxa bac loo gelina qofka neefta lagu celinina ilaa uu yiraahdo waa baxa guriga aada marka anaga baadii madaxa magii loo gashay neefta lagu dhigtay oo xaaladdu nagu xumaatay pilotki yimid oo macnaha teemka diyaaradda dhici rabay pilotku markuu soo dhawaaday naga fureen bacda بعدين جابك كشدة وقريان بايلوت كي مركب ويمدين أنا جنا واحد عن النار مسؤول وضع كائن أمريكي كم جروا عباد المفات مركز بايلوت كحولها ده كان مقادان ده بدي تن إنه يسبحان وضع كذا آذان مقادان بايلوت كل حناقو نقتري كبعد حفص قالوا له عشي حفص ممكن له عشي هذا عن قبضتين على صاري قالوا كاد قرينا قالوا هنا لك الشيء اللي راح حفص عقاب واقرت معناها ضد لو عقابه والرشيك اللي جرى قال يرمك ديوان واقرت حكون تنبري أكون جرني كبعد قال كريسة نوع مادين وينقص سوداء وحتى وعيشة حتى طبعا كاسبري إن عنتد اللي يدين ديدا نوشكتن أو بيو مسكوش أتكعب يسين قل كينا كتال أولا تدوى لودي ذا قف قصة الحيل سوديدو تدوى لودي ذا يا قف قصة حتى مرق قارب حان عدو قول كذا كجرو هيا صحيح لا قاعدة فرها ولا قاعدة ما رتاير مدحنا بعض الوجلنا والو نعسينا سياد ديار تصعد هذا مديدين واقف مركز أنا waxaad kaloo ii sheegtay aan ka hor intaan wareysiga ka qaadanaan xoogaa sheekaysanay marka waxaad jirtay dharkii xabsiga markii hore aad ku jirteen in la idinka bedelay oo dhar kale la idin galiyay isla markaana la idin qoray inaad dambiilayaal tihiin maadaama diideen in la idin tarxiilo arrintaasina sidee u dhacday ها ولا ربط واحد جبتاني مكان وانمن توجا ولا هذا عايز للي وانمن شرعي أيوة رباني قف كل قمان ذا إن قف كمركو ديارس وديدو حالك دقايا كريمنال وياي مدام أود كيس ديدي مدام سفارة الصومالية أقبشني كائن ضمانة قاضي أصلاً وصود ديدي معناه وحوا كريمنال نقولنسا واقرت
marka waa laga bedela dadka maarta waddanka laga soo qabtay dadka diliya meel ugu la xiraya waa gartay dadka dambiilayaasha lagu daraya macna dadka dambiilayaasha ugu daraha marka si marka hadhow maxkamadda dhahaa ninka waa criminal waa gartay taas arrintaas jirto markaasina tarxiilkaadu wuu fududaanaya haddii ay ku qoran tahay inaad dambiilo tahay tarxiilkaagu wuu fududaanaya ciqaabtaadana siday doontaan kaa yeelayaan aniga waa noo hajabeen waxay dhaheen iyo kalkaa diyaaradda haddaa soo diidaan dharka jaalaha diigelina oo high level high level la dhahaa oo dambiilayaal sarsaraa laydinka dhigaya laydinka dhigaya nalooga hajab waxaad ii sheegtay in ciisow in xabsiyadaasi Louisiana ku yaala ay Soomaali fara badan ku xirnayd tiradana aad ogaateen oo systemka aad ku ogaateen dadka xabsiyada ka shaqeynayeen ay idin sheegeen imise qof ayaa ku xirnayd xabsiyada Louisiana oo Soomaali ah walaal horto xabsiga marka dad waxa jira wiilal Soomaali oo dhowr inaga soo horeeyay iyo meesha nagu soo horeeyay iyo anaga marka shaqooyinka waxa qabsanaa shaqooyinka meelaha la shaqeynaa maadaama luqadda garanayno shaqooyinka waxa qabanaa oo nadaafadda mabaati iyo xafiisyada marka qof oo isku macaamil laga dhaxeeyo kala weydiinaysa wixii Soomaali noogo marka waxay noo sheegeen 372 qof in xabsiga Louisiana isku xirtay xabsiyada kala duwan oo Louisiana bas gobolka bas laakiin 372 qof mar dabo marka aniga laba bil amal xabsi ku jiriya martaba gadaal ku weydiinay maadaama Soomaali badan la tarxiilay gadaal ku weydiinay waxay dhaheen 120 qof amal ka maqan oo dal la tarxiilay waa gartay marka